waan idin salaamay akhyaarta sharafta leh aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idinku soo dhaweynayaa inaan cashiradii ku saabsanaa ilaahay waa kuma aynu ka hadallo marka qaybtan waxaan kaga hadli doonaa waxaynu ka soo hadalnay hadda ka hor cashar ku saabsan caqiidada iyo in waxaynu soo sheegnay in haba yaraatee wax khilaaf uusan jirin oo caqiidada laga midaysan yahay oo ilaahay mid yahay hadday noqoto Bible-ka iyo hadday noqoto Quraanka labadaba marka ilaaha midka ayaynu eegaynaa sifooyinka uu isku sheegay marka cashirkan hadda aan bilaabayo waxa uu ka yar adag yahay cashirkii hore waxa weeyaan waxaan isweydiiyay su'aal oranaysa ilaaha Bible-ku uu inoo sheegay midka iyo ilaaha Quraanku inoo sheegay midka ma isku hal ilaah baa waa su'aal aad u adag runtii oo ma garanaysaa culayskeeda leh marka adiguba waad qiimeyn doontaa anigu hadda waa isku hal ilaahi ma waa laba kale ilaah ma oranayo anigu jawaab fudud miska ku dhigi maayo laakiin waxaan jecelahay inaad idinku baadhaan idinkoo akhriyaya oo qiimeynaya cadaymaha aan idinla wadaagi doono haddii la yiraahdo hadday noqoto xagga Bible-ka iyo hadday noqoto xagga Quraanka adigu waad arkaysaa waxaa jira dad expert oo cuntada kariya oo cook ah marka way dhadhamiyaan cuntada wayna qiimeeyaan waxbay ka qoraan milixda ku badan saliidda ku badan sida looma sameeyo marka adigu cadaymaha aan soo bandhigayo markaad daawato adigu marka waxba ku soo baxaya marka waad arki karaysaa in hal ilaah laga sheekeynayo in laba ilaah oo kala duwan laga kala sheekeynayo marka aan ku socono fadlan ila soco waxaynu ku horeynaynaa kitaabka quduuska waxay leedahay sidan ilaaha Bible-ka wuxuu leeyahay Bible-ku wuxuu leeyahay ilaahay waa aabe ayuu leeyahay Bible-ku aynu akhrino فتقول لفرعون هكذا يقول رب إسرائيل ابني البكر فقلت لك أطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر marka ayadani waxay leedahay ilaaha Bible-ku oo Tawreed iyo Injiilku ay inoo sheegayaan waxa weeyaan waa aabe waa ilaah aabba Tawreed buu aabba ku ahaa marka wuxuu ku yiri Nabi Muuse ayuu ilaaha la hadlo waxa lagu yiri bax oo Fircoon u tag boqorkii Masar u tag oo waxaad ku tirahaa Israa'iil waa wiilkayga wiilkayga ii siidaa waana diiday marka wiilkaaga curadka ayaan dilayaa sida Fircoon u sheeg baa lagu yiri marka waxa ahayd markii ilaahay Nabi Muuse diray oo Fircoon loo diray ayaa Fircoon u diiday marka inuu reer bani Israa'iil sii daayo adoonsiga ka sii daayo marka ilaahay wuxuu yiri waa diiday wiilkayga curadkayga Israa'iil inaad sii dayso oo xorriyadiisa siiso oo meeshan u waday dhulka aan u kaxaynayo aad u sii dayso waa diiday marka talaaban ka qaadaya curadkaaga ayaan dilayaa marka waxa dhacday in curadadii reer Masaari oo dhan kuwii bini aadanka ahaa iyo kuwii xoolaha xataa hal habeen ay wada dhinteen oo rabbigu wada laayay markaasuu Fircoon timaha iska rifay oo qayliyay iga sii daaya waxa jirta aayado badan oo kuwa ka horeeyo oo tiro badan oo 10 aayadooda oo ay ka mid yihiin webigu inuu dhiig noqdo in raha lagu sii daayo in ma garanaysaa waxyaabo badan oo kala duwan lagu salido oo madaxadkaade waxaas dhan way shaqeyn waayeen markii dambe ayuu ilaahay tallaabo ka qaaday marka ilaahay sida uu isku sheegay kitaabka quduuska uu ku sheegay waa aabe Bible-ka aabba weeyaan wiilkayga Israa'iil siida ayuu ilaahay yiri marka waa diiday anna wiilkaaga curadka ayaan dilayaa marka waxa weeyaan waa baxniintii cutubka 3aad aayadda 22aad ayaan akhriyay aan ku soconno taasi waa qodobka koobaad qodobka labaad ilaahay sida Bible-ku uu qabo wuxuu aabba u yahay Ciise Masiix waa Ciise Masiix aabihi iyo inta Ciise Masiix raacdaba waxa ilaahay Bible-ka reer bani Israa'iil kaliya aabba uma ahayne waa aabbaha Ciise Masiix iyo inta Ciise Masiix raacdaba waa arrin aad runtii u xiiso badan weeyaan bal aynu akhrino aynu kitaabka ku soconno marka biyagelintii Ciise Masiix ay weeyaan ciwaanku xiina idin jaa Yasuuc min al-Jaliil ila al-Urdun إلى يوحنا ليتعمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا
أنا محتاج أن أتعمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له اسمع الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع سعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ومتايوس cutubka 3 aayadda 13 ilaa aayadda 17. marka waxay leedahay ciise masiix ayaa u tagay, ama nabi ciise idinku saad u taqaanaan, ayaa u tagay nabi yaxye. yoxanahani nabi yaxya la dhahaa, waa ina sakariye weeye. markaasuu yidhi biyogeli oo baabtiiska ama mukhursiintu waxa weeyaan waa dhaqan ay masiixiyaddu leedahay weeyaan. waxa weeyaan qofka waxa weeyaan aqoonsiga masiixiga weeyaan. qofku markuu islaamka galo masaajidka la geeyaa wuu ashahaataa, markaasuu bulshada muslimka ku biiraa. masiixiga qofka masiixi noqonayana markuu masiixa aqbalo biyaha la mukhursiiyaa. biyo mukhursiintana marka waxa weeyaan inuu ku beeray masiixiyiintii, weliba markhaati baa laga noqdaa, dad badan baa la isugu yeedhaa, sida guurka oo kale. waa munaasabad muhiim ah. waxa weeyaan qof kasta la iskama aamin karo. qofka suu socdo intuu kiniisada iska galo masiixi baan ma odhan karo. waa in process uu maraa. processkaas waxaa ka mid ah in biyaha qofka la mukhursiiyo. marka baptism baa ereygaa la yidhaha. baptism waa erey Greek ah oo afka Greek ka soo jeeda. haddii af Soomaali laga dhigo wuxuu noqonayaa mukhursiin ama biyogelin. marka ciise masiix ayaa u tagay nabi yaxye. nabi yaxyena dadka ayuu biyogelinayay. reer bani Israa'iil buu wuxuu ku biyogelinayay webiga Urdun, oo waxaa la dhahaa biyogelintii toobadkeenka. marka ciise masiix baa u yimid oo dadka yahuudda ka mid ahaa isaguna. markaasuu yidhi ana biyaha igeli. markaasuu yidhi war anaaba doonaya inaad biyaha igelisee adiguna miyaad ii timid? markaasuu yidhi hadda arrintaas halkaa inaga dhigo, waa inaynu wanaagga oo dhan samayno sidaa yeel buri, hay diidine. marka wuu ka yeelay. nebi yaxye ayaa marka ciise masiix biyaha mukhursiiyey. markii uu biyaha sidaa uga soo baxay, waxay leedahay aayaddu waxaa ku soo degay ruuxa quduuska ah oo sidii qooley oo kale ah, oo garabkiisa ayuu ku fadhiistay. fahmaysaa? garabkiisa ayuu ku fadhiistay. marka haddana samaawaadka ayaa furmay ayay leedahay aayaddu, oo cod ayaa samada ka dhawaaqay. oo wuxuu yidhi kanu waa meeshaan aan u socono aayadda, kanu waa wiilkayga aan jecelahay een ku faraxsanahay. marka codkaasi waa codkii ilaahay. ilaahay baa markii ciise masiix la mukhursiiyey samada ka dhawaaqay oo cod la maqlayo, oo ciise masiix iyo nebi yaxya maqlayaan. wuxuu ku yidhi ciise masiix waa wiilkayga aan jecelahay een ku faraxsanahay. marka waa injiilka Matayos cutubka 3 aayadda 13 ilaa 17. aan ku socdo. wuxuu yidhi arrintanna waa sida loo ducaysto ama sida loo tukado xagga masiixiyadda. waa Matayos cutubka 3, Matayos cutubka Yoxana cutubka 1 aayadda 9 ilaa aayadda 13. waxay leedahay sidan: fasalluu antum hakada, idinkuna sidan u tukada. marka waxay ahayd xerta ciise masiix ayaa waxay arkeen xerta nebi yaxye. nebi yaxyena xer buu lahaa oo tukanaya. markaasay u yimaadeen waxay ku dhaheen sayidow annagana na bar fadlan sida loo tukado. sabab nasuulku qisada sidan ay ku timid, aayadduna sidan ay ku timid. markaasuu ciise masiix u jawaabay oo wuxuu ku yidhi sidan u tukada. marka wuxuu yidhi sidii loo tukanayay buu hadda marka akhriyaya. fasalluu antum hakada abaa'ana alladii fi الsamaawaat liyataqadasa ismuka liya'tiya malakuutuka litakun mashii'atuka kamaa fi الsamaa'i kadhalika cala alard. خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. marka waxay ku bilaabanaysaa meeshaan uga socday abaa'ana alladii fi الsamaawaat, aabbahayaga jannada ku jiro. ciise masiix wuxuu yidhi markaad ilaahay baryaysaan ilaahayow ha dhihine, markaad ducaysanaysaan ee tukanaysaan ee ilaahay la hadlaysaan ilaahayow ha dhihine, waxaad dhahdaan aabbow. marka waa aabe. ilaahay aab buu isku sheegay. aabbahayaga jannada ku jiro, magacaagu quduusa ahaado,
boqortooyadaadu ha timaado doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida samada lagu yeelo sidaa u tukada buu ilaa aakhir alaaya ilaa dhammaystirka aayadda marka injiilka wuxuu ilaahay wuxuu ciise masiix ugu yeedhay ilaahay aabbihii isaga iyo inta raacdaba ya oo isaga oo aabbow lena waad arki doontaa aabbow isagoo le ciise masiix mu'miniintiina wuxuu ku yidhi xertiisa ahayd markaad tukanaysaan aabbow dhaha idinkuna waad ifahantay baan u malayn aabbow dhaha idinkuna marka waxa weeyaan yoxana cutubka 1 aayadda 9 ilaa aayadda 13 waan gartay marka hadduu ilaahay aabba noqday ya oo kitaabka tawreedna uu ilaahay ku yidhi fircoon wiilkayga israa'iil ii sii daa cahdiga cusub ama injiilkana uu ilaahay yidhi aabbow dhaha markaad tukanaysaan ciise masiix xertiisa yidhi aabbow dhaha ilaahayna uu ciise masiix ku yidhi kan waa wiilkaygii aan jeclaa een doortay qur-aanku muxuu arrintaa ka qabaa ilaahay muxuu isku sheegay qur-aanka muxuu isugu yeedhay bal aan akhrino ila soco fadlan xagga ay qur-aanka aan u kacno arrintaa qur-aanku muxuu jawaabu ka bixiyey jawaabtaasi waa maxay waxay leedahay sidan ilaahay sida qur-aanku qabo aabbe ma aha mana ogola inuu mu'miniinta caruur ugu yeedho waan weeyaan ilaahay islaamka aabbana ma aha in caruur loo nisbeeyana ma ogola marka aayaddu sidan ay leedahay وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير كدروا الدب الدلمي ورنشر نورت شاقكم الله إلهي وحاد وقالت اليهود أي قرآن كجري وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يهود كريستانكو نصارى كريستان كلا دهايا مسيحيين تي وحي دهين نحن أبناء الله وأحباؤه وحانو نهي أنه عرورتي إلهي يكوي وجعلاء مركا قرآنك سيدا كداميس السياقة يا waxa weeyaan waa eed aan waxba ka jirin weeyaan oo way sheegasho qaawan weeyaan quraanku saawayaan waqaalat al-yahuud waxay dhaheen weeyaan sheegasho aan waxba ka jirin waxaan nahay caruurta ilaahay iyo kuwa jeclaa marka wuxuu yiri qul waxaad ku tiraahdaa maxamedow falima yu'adhibukum bidhunubikum haday sidaa tahay oo arintaas u jirto oo caruurta ilaahay iyo kuwa uu jeclaa aatihiin محو دنبيدين إذن كعذابا إلا إلهي عروت سمع عذابا يكون وجعل هاي فلما يعذبكم بذنوبكم دنبيدين محو إذن كعذابا يا مركز ساس الليل وسؤال ما شاء الله بل بالليل مركز بل إرجع لغة عربية وحال لها تجوب ما قبلها وتثبت ما بعدها وحا كهرينا وي كنسشا الليد بكدكتا وحا وحبا كجيرين وحا كدن بيانا وي سكتاي وي way shaambadaysaa marka waxaa la yidhi sheekadii naas iyo sheegashadii naasi waxba kama jiraan weeyaan markaa macnuhu waa sidaa bal antum basharun mimman khalaq waxaad tihiin bini aadan bashar oo ka mid weliba mimma khalaq waxyaabaha uu ilaahay abuuray marka waxay yidhaahdood ilaahay la leedihiinoo biologicaalahu ma jiro weeyaan islaamka haddii la sheego waa arrin la yaab laho iyaduna aan in badan anigu isweydiiyey ma ogtahay haddii wiilnimo la sheego islaamka xagga masiixiyadda ku saabsan iyo yahuudnimada wiilnimadaas waxaa loo fasiraa oo qur-aanku wuxuu u macneeyaa inay tahay mid biologicala oo physicala wiilnimo kalaa jirta oo qur-aanku uu sheegtay oo aan cidna xaggaa u macnaysanin sida ibnu sabiil oo kale ina wado وقرآن كحولية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل ضدك صدقة متيسة مسلمين تلقى أروريو وحويان للفقراء والمساكين وفقراء إيا مساكين تا والله ضد هنتير لكن ويكلا سريان يا والعاملين عليها يكون كشقي والمؤلفة قلوبهم كو إسلام كاللوسو تشيدي العكت اللوسو قلنيو إيو ابن السبيل إنا ودا كتشرة marka ibnu sabiil baa leeyahay kii ay wadadu dhashay marka cid u fasiranaysa wadadu inay intay na gursato ilmo dhasho ama macna physical ma jirto inuu macnahaasi macnawi ay yahay
cid kasta way fahmaysaa af carabiga taqaana laakiin marka kristanka iyo yahuuddu wiilnimo laga maqlo iyo bibaleka ama injiilka isla markaaba quraanku wuxuu farta ku fiiqaa wiilnimo biological oo galma ka timaado marka bal antum basharun mimman khalaqa ilaahay wiil lama dhalo wiilal lama yeesho caruurna ma dhalo weeyaan edabdarrada iyo aflagaadada joojiya bal antum bashar baabatihin bashar iyo ilaahayna xidhiidh physical ma laha iyo calaaqad ama qarabo xagga jidhka ma laha marka waad arkaysaa dhagax tuurka xoogga uu leeyahay iyo in bibaleka aayadaha ku cad iyo mabaadi'da ku cad ee wiilnimada quraanku uu meel fog kaga soo haray ilaaha bibalku waa aabe cahdigii hore iyo cahdiga cusub ilaaha quraankuna wuu ka xanaaqaaba aabanimada marka ma isku hal ilaah baan ka sheekaynaynaa adaan kaaga tagaya arrintaas الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وباللوغة aayadihii hore waxa weeyaan waan ka dhaafay waa suuratu maa'ida oo ah cutubka chapterka shanaad aayadda 18 weeye aayaddii hore aan akhriyay waa suuratu maa'ida 18 aayadan hadda aan akhrina waxa weeyaan waa suuratul kahf bilowgeeda shanta aayadood ugu horeeyay weeye ilaahay baa mahadle soo dejiyay kitaabkiisa waa quraanka loo jeedaa alxamdulillahi alladhi anzala alkitaaba ala abdihi ilaaha waxa ammaan leh oo mahad leh adoonkiisa maxamed baa loo jeedaa ku soo dejiyay kitaab aan qalqallo lahayn kaas oo u ah digniin liyundir alladina si uu uga digo ba'san shadiidan inuu dadka uga digo cadaab iyo balaayo ku soo socota qayiman liyundir ba'san shadiidan min ladunhu balaayo xagga ilaahay ka soo socoto quraanku ka diga ayay leedahay aayadu taas oo kaliya ma ahayn wuxuu quraanku u digaayo u digaa alladina qaaluu ittakhadha arrahmaanu waladan kuwii yidhi ilaahay wiil buu samaystay ilaahay wiil ayuu samaystay ittakhadha arrahmaanu waladan ilaahay wiil buu samaystay maa lahum bihi min cilmin arrintaa waxay cilmi u hayaan ma jirto walaa liaabaa'ihim aabbayaashoodna arrintaa cilmi uma laha kaburat kalimatan takhruj min afwaahim aflagaadadoodu weynaa ayay quraanku yidhi kaburat kalimatan takhruj min afwaahim إن يقولون إلا كذبا ما يقولون إلا كذبا بين قاون ويان وحنا كهاليان إلى هاي ويل لما دلو ويل لما سميست مركب ما فاهم إزاي جابك ودحية توريد إنجيل إيا قرآنك يا إله قرآنك سو ويل لما دو حناقيو وأركيسا إنا ويل بأكتيس اللي سو مرين كرين إن يقولون إلا كذبا بين قاون بيكو هاليان بو أيوير كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني ما حشرونayaan weeyaan xataa aflagaadada ay ilaahay caayana ilay wiil buu dhalay waxa weeyaan mid la qaadan karo maaha iyo quraanku leeyahay marka waad arkaysaa in sida garanaysaa ilaaha bibaleka iyo ilaaha quraanku siday u kala fog yihiin waad arkaysaa iyo sifa ahaan ma garanaysaa aan ku socono marka waa suuratul kahfi aayadda koowaad ilaa aayadda saddexaad weeye aayaddaas hadda aan ku akhriyay وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي آية أن لا يدحي يا وعجيب صماها waxay dhaheen ittakhadha arrahmaanu waladan allah arrahmaan hu wiil buu samaystay wiil buu dhalay bal lahu ma fi samaa subhanahu ayatu subhanahu hadii la Soomaaliya waxay noqon uu ka nasahan yahay ceeb oo dhan iyo waxaas uu ka nasahan yahay waxa la sheegay uu ka nasahan yahay weeyaan subhanahu uu ka fog yahay weeyaan nasahan waa carabi lafteedu uu ka fog yahay weey waxa lagu sheegay iyo wiilnimadaas shaqo kuma laha ilaahay بل له ما في السماوات والأرض له كله قانتون وحو ليه waxa dhulka له ما في السماوات والأرض dhulka samooyinka iyo dhulka waxa ku nool oo dhan buu ilaahay leeyahay macnaheedu waa maxay wiilka baahi baa loo yeeshaa ilaahay baahi uma qabo wiil weeyaan macnuhu waa sida ilaahay baahi wiil uma qabo sababtoo waxa adduunka nool
waxa samaawaadka ku nool iyo waxa dhulka ku nool oo dhan ayuu leeyahay badiicu samaawaati wal ard ayay tiri aayaddu badiicu samaawaati wal ard badiic waxa weeyaan af Soomaaliga waxa weeyaan waa bilaabe isagoon meel ka eeganin bilaabe weeyaan waa innovation of Ingiriisiga marka waxa weeyaan isaga oon cidna meel sawir ka qaadanin ayuu bilaabay badiicu samaawaati wal ard wa idha qada amran lahu idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun hadduu wax doonay inuu abuurana ahaw buu dhahaa wayna ahaadaan marka aayaddu maxay leedahay ilaaha sifooyinkaa leh ee samaawaadka iyo dhulka isagoon meel ka eeganin oon meel ka koobiyeynin abuuray oo ereygiisu awooddaas leedahay oo wuxuu doono ahaw intuu yidhaaha ay ahaanayaan sidee buu wiil u yeelan karaa weeyaan baahida u kalifaysa inuu wiil yeesho waa maxay waa logic kali weeyaan waa su'aal logiga weeyaan miyuu wiil u baahan karaa wiil baahi baa loo yeeshaa sidaa weeyaan aayadda macnaheedu waa suuratul baqara weeyaan aayadda 115 weeyaan ku akhriyay marka waa isla midun aayadahaas waa isla midun isku waxbay sheegayaan aan ku soconno waan gartay waqaalu ittakhadha arrahmaanu waladan waa isla qisadii waqaalu ittakhadha arrahmaanu waladan laqad ji'tum shay'an iddan takaadu samaawaatu yatafattarna minhu watashaqqu al-ardu watakhiru al-jibaalu haddan an da'u lirrahmaani waladan wama yanbaghi lirrahmaani an yattakhidha waladan tana aad bay balaaqad badan bay isticmaashay aayadani aad iyo aad ayay balaaqad badan bay isticmaashay tanna waxay dhaheen oo sheegashadii ilaaha arrahmaanu wiil buu yeeshay laqad ji'tum shay waxaan afka la soo marin karin maad ku hadasheen baa la yidhi yaa ku hadlay waxaas kiristanka iyo yuhuudda intay laabta garaaceen dhahay waxaanu nahay carruurtii ilaahay iyo kuwii jeclaa laqad ji'tum shay'an iddan wax aan afka la soo marin karin weeye takaadu samaawaatu yatafattarna buuruhu inay dildilaacaan hafaryadaas culayskeeda ayay ku dhow yihiin watanshaqqa al-ardu dhulkuna dildilaaco watakhiru al-jibaalu haddan buuruhuna ay burburaan sababtu waa maxay an da'u lirrahmaani waladan inay dhaheen allaha raxmaanu ku wiil buu samaystay marka waad arkaysaa dhagax tuurku culayska u leeyahay iyo ilaaha quraanka inaan wax wiil la yidhaaho loo soo dhaweyn karin looma soo dhaweyn karo xanaaq iyo waxa weeyaan ceeb iyo aflagaado taa ka weyn maba jirtaba marka waa suuratu maryam weeyaan aayadahaasi suuratu maryam weeyaan aayadda 78 91 weeyaan aayadda hadda aan akhriyay badiicu samaawaati wal ardi annaa yakuunu lahu waladun ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم أي تور الله وأنعام آيات بقولات داس مركا قرآنكو ويرري شيء شذا إلهي ويل لو شيء أما ويل لو نسبي قرآنكو وحو معنيي وفسري إن لو تشيزو ويل نما حاجة شركة ويل حاجة شركة أنا قل ما لقول على ده إنك لا قل موضوع oo ay uureysato isaa ku dhasho ayaa loo jeedaa marka ay masiixiyiinta iyo yuhuuddu ay dhaheen caruurta ilaahay baan nahay quraanka iyo muslimiintu waxay u fahmeen in la leeyahay ilaahay baa intuu yimid oo nin iska soo dhigay oo gabadh u galmooday caruur ka dhalay marka waa aflagaado aad u foolxun weeyaan quraanku marka saas u weeraray sidaasuu ilaahay u difaacay inay wiilnimadani macna kala yeelan kartaba quraanku meesha uu ka saaray marka aayadana macnaynaysa suuratu an'aam aayadda 100 waxay leedahay badiicu samaawaati wal ardi kii samaawaadka iyo dhulka bilaabay weeye sidii tii horan soo sheegnay oo alifay isagoon meel ka eeganin sidee buu wiil u yeelan karaa annaa yakuunu lahu walad sidee buu wiil ama ilmo u yeelan karaa walam tankun lahu saaxiba naagba ma qabe wiilnimadan in naag laga dhalo marka halkanaad ka cadaynaysa quraanku wuu ismacneeyaa wiilnimada quraanku uu ku weeraray yuhuudda iyo kristanka in wiilnimo biological oo xagga jidhka loo jeedo aayadan suuratu an'aam ku jirtay ayaa inoo cadaynaysa annaa yakuunu lahu waladun annaada waxaa la dhahaa waa istifhaam inkaari waa diidmo aad ay cadha ka muuqato weeye diidmo cadha ka muuqato annaa siday ku dhici kartaa weeyaan af Soomaaliga siday ku dhici kartaa annaa yakuunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba sidee buu wiil u yeelan karaa miyaydaan xishoonaynin miyaydaan ilaahay ka cabsanaynin miyaydaan yaxyaxaynin weeyaan sida afka u soo marisan ilaahay sa ugu caydeen ilaahay naagba ma qabe isagoo naag qabin miyuu ilmo dhalaya weeyaan sida in iyadoo naagba loo galmoon oo naagba la qabin
wiil la yeelan karo oo si kale wiil lagu yeelan karo oo erayadani ay macno kale yeelan karaan quraanku meesha uu ka saaray totally uu ka saaray waxay inoogu iman doontaa wiilnimada ciise masiix markaynu gaadhno oo buuq badan ka dhashay oo muslimka iyo masiixiyiintu ku kala qaybsameen marka suuratu ancaam aayadda 100 weyn ma garat aan ku soconno qul huwa allahu ahad marka suurad aayad qul huwa allahu waxay leedahay آيات بان كبودي وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وسورة جن ويان سورة جن وأنه تعالى إلهي حسرية تعالى ربنا الله ربك يجو حس جنكي مؤمنين تهابا سيدا وهذا يقرأن كليه وحو قرآن كليه سورة جن ويكسو دكتي جنكو سيدا إسلامك آمسين هاي وحي آمسين إنو قار مؤمنين إيا قار قال عليه sida bini aadanka marka koox jin ah oo niman ah ayaa u timid nabi maxamed oo habeenimo quraan akhriyay waxay leedahay marka aayadu waa isfulfuuleen si ay u maqlaan midba mid buu garabka fuulay oo markaasay dhageysteen markaasay quraankii rumeeyeen marka jawaabta ku hadleen weeyaan aayadani inna sami'na qur'aanan unzila min ba'di muusa bay dhaheen qur'aan muuse kadib la soo dejiyay waanu maqlay fa aamanna bihi waanu rumaynay qur'aankaas waanu rumaynay حتى إنجيلك كبودين وايو إنجيلك كدم بي التوراة وحيد هن مركا وأنه تعالى إلهي هسر ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ناق يويل من نمونا يلن وكا معناه نوجه دواتا ناق يويل من نمونا يلن مركا عدين تاس إن ويل إلهي يلن كرين أو أفلقات هاي قرآن كآد أي وصل نقطة مركا وسورة الجن آيات الله بعد وي ما قرأت إن ويل نمدن لوج للقرآن كوار أي مد بيولوج كالة هاي وتا ما اتخذ صاحبة ولا ولد ناق يويل نقول كناق بعد شد ناق بعد شا وقل من كل شا ما اتخذ صاحبة ولا ولد قل هو الله أحد أي لا هتنا سورة إخلاص بالله قل هو الله أحد إلهي وامد يا عنا ملك أخي ولا دودية مسيحيين تأي مسلم وحي سود دودية كل سنة كبدن oo laga dooday ilaahay iyo sifooyinkiisa marka muslimku waxay dhahaan oo quraanku u dhahaa qul huwa allahu ahad ilaahay waa mid wadaan masiixa wuxuu yidhi caraba ahad fi mid ka yahay ma tiradu mid ka yahay ma sifadu mid ka yahay ma dabeecadu mid ka yahay buu ya waayo baayamalka ilaahay waxa weeyaan waa complex ahadnimadiisu waa complex marka masif oo sifooyin kala duwan iyo qaabab kala duwan buu isku muujiyay وقاب صدحنما أيو اسكو موجي صدح هذا إسقوا مد أيو صدح اسكو موجي ترينيتي بالله ده مرك ترينيتي جو مالك لو ينوجو إيمان تونا مرك لينو أين سوقو في تونا لكن هالكم محاوين الله أحد مركا قل هو الله أحد الله سمد أي لا لم يلد ولم يولد وأيضنا وركي بتشرتيبا إلهي وامد الله أحد إلهي وامد الله سمد يا وسمد وحول الله إسقى أي كتير سين هو كتيران لم يلد ولم يولد وحنا ما دارو لما ندارو محلو كذا مركا محلو دور حليا قليها إلهي ويل ما ونسبي أو يري ويلش إلهي بانهاي أما عيسى المسيح أو يري ويلك إلهي بانهاي أيا ما وقتها فرت الغفي قيا لم يلد ولم يولد ما ندارو وحبا ما ندلو لما ندلو ساسي لا عيدو ما ندلو لما ندلو marka waad arkaysaa meesha laga soo haray fikirka bible-ka ku yaala ee ah inuu ilaahay caruur leeyahay oo caruur dhalo aan ku socono الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مركا آية الكرسي كان وحكم بالله ما ساس كله توحيد كوكب بالله ما الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلهي وإله حي وقيوم مركب وان صور شيء ناي آيات داس وان صور شيء حتى كهر ما صور مرة كسر مركب القرآن كوحو كدوضي إنه إلهي مدي هاي لنا دالين وحنا وسق دالين ويلنا أن لون سبين كرين ميل دو يميل دير منا مركب إله قرآنك يا إله بايبلكو ماشان مركب الإيجو لبس صبروا آدو كلا فوق أي ليه مركب كيسحة كيقمن أديك أنك أجتري دورشة عدالة وعم حسنتين